kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV. Qodobada warka Samareeb TV ugu door koronaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland oo ka warbixiyay howlgallada ka socda magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland. Sawirro murugo leh oo laga qaaday hooyo India ku nool oo ay ag fadhido meydka walaalkeed oo 29 jir ah oo u dhintay cudurka COVID-19. Golaha ammaanka oo baaq kale oo degdeg ah ka soo saaray xaaladda Soomaaliya kuna baaqay wadahadal cusub. India gaar ahaan Delhi oo gebi ahaanba ka dhamaaday oksijiinka COVID-19 looga talagalay. daawadahadan cusubtaan ugu soo biir subscribe saar gambalaalkana fur si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay halka aynu soo dhigno. waa maalinimo Sabtiya taariikhdu ay ku beegan tahay 24 Abriil 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dheeraad ah. ayna ku bilaabnay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay go'aankii golaha amniga ee qaramada midoobay kan golaha amniga ee midowga Afrika iyo baaqyada isxigxiga ee saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo ay si wadajir ah ugu cambaarayeen muddo kordhinta baarlamaanku ay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo. waxa uu sheegay in aysan Soomaaliya qaadi karin xil kordhin oo ay tahay in heshiiskii September 2020 uu yahay dariiqa kaliya ee loogu badbaadin karo dalka inuu galo fowdo iyo amni daro caqabad ku ah xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka. madaxweyne Sheekh Shariif ayaa waxa uu yiri waxaan codkayga ku biirinayaa taageerada baanka golaha amniga ee qaramada midoobay kan golaha amniga ee midowga Afrika iyo baaqadan isxigiga ee saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo ay si wadajir ah ugu cambaarayeen muddo kordhinta sharci darrada oo ay yar oo kamid ah golaha shacabka ay sifa aan waafaqsaneyn shuruucda dalka u go'aamiyay waasoo hadalku u dhigay. dalkan dowladnimadiisa jilcan meel fog baa laga keenay oo waqti xoolo iyo nafba loo horay sida awgeed marna lama aqbali doono ficilada aan mas'uuliyadda lahayn ee ay wadaan koox yar oo kursi jecel oo madax maray waasoo hadalku u dhigay. gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka dowlad goboleedka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur oo la hadlay warbaahinta VOA ayaa faahfaahiyay howlgallada ka socda magaalada Gaalkacyo oo maalmihii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ay ku xireen dad loo haysto dambiye iyo tuhmo kale. Cabdiladiif ayaa sababta keentay howlgalka ku sheegay in dilalka iyo qaraxyada ay ku kordheen magaalada Gaalkacyo ka ganacsiga walaxa maanka dooriya iyo wax walba oo qayb ka noqon kara amni darrada waqooyiga xarunta gobolka Mudug. ciidamo dheeraad ah ayuu sheegay in ay u diyaariyeen magaalada Gaalkacyo si ay u baaraan meelaha lagu tuhmayo dadka qaybta ka ah amni darrada waa sida uu hadalku u dhigay. gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka dowlad goboleedka Puntland sababtaan u kordhinay howlgallada waa in aan gacan adag ku qabno dadka dilalka geysta waxaana diyaarinay ciidamo dheeraad ah oo aan dhowaan ku fasaxi doono magaalada Gaalkacyo si ay baaristooda u xoojiyaan. sidaasi waxaa yiri gudoomiye Cabdiladiif Muuse Nuur. sidoo kale dad badan ayaa ku xiran xabsiyada Gaalkacyo iyo xarumo gaar ah oo ay leeyihiin ciidamada. gudoomiye Cabdiladiif waxa uu si cad u sheegay in khubaro Puntland iyo kuwa banaanka ay ka keeneen ay iska kaashanayaan baaristooda. haatan India sawirro qalbiga taabanaya oo laga qaaday hooyo India ku nool oo ag fadhida meydka walaalkeeda oo 29 jir ah oo u dhintay fayraska corona ayaa hadalhayn weyn ka abuuray dalkaasi. sawirka ayaa muujinaya hooyo Jandarakala Singha oo aad u daalan oo dhagax ku fadhida uuna hor yaala meydka walaalkeed Vineet Singha. sawirka oo laga qaaday waddo cariiri ah oo ka mid ah wadooyinka magaalada Varanasi oo ka tirsan gobolka Uttar Pradesh oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. sawirkan naxdinta leh ayaa tusaale ka bixinaya saameynta uu cudurka safmarka ah u geystay India iyo sida uu cudurka ugu itaal roonaaday adeega caafimaadka dalkaasi. dalka India ayaa ka mid ah dalalka uu sida weyn u saameeyay mowjadda labaad ee COVID-19. gobolka Varanasi oo ah gobolka laga soo doorto Ra'iisul Wasaare Narendra Modi ayaa ka mid ah gobolada sida weyn ula dala dhacaya cudurka. Vineet kaliyaha ayaa ka xanuunsanaa wuxuuna ku xirnaa dhakhtar ku shaqeeya isbitaalka BHU. isniintii ayuuna la ballansanaa dhakhtarka ayuu yiri Sinha adeerkeeda.
balse hooyada iyo wiilkeeda xanuunsan isbitaalka ay ballanta ku lahaayeen markay gaareen waxaa loo sheegay inuu dhakhtarka joogin, waxaana lagula taliyay in ay tagaan xarunta lagu hayo dadka ay xaaladoodu culus tahay. hase yeeshee Vinet wuxuu ku dhacay albaabka laga galo xarunta dadka xaaladaha adeeg degdeg ah ku jira, maadaama ay shaqaalaha isbitaalka diideen in ay wiilkeeda qaabilaan, ayay tiri hooyadii. waxay igu yiraahdeen waxaa ku dhacay corona ee naga qaado wiilkaagana waxaa dhibayay naqaska, waxaan shaqaalaha caafimaadka ka baryay inay wiilkayga oxygen ku xiraan, ayay tiri iyada oo ooyeysa. xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ee war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in si qoto dheer ugu walaacsan yihiin ismarwaaga siyaasadeed iyo khilaafka u dhexeeya hogaamiyaasha Soomaalida ee ku aadan hanaanka doorashooyinka. xubnaha golaha ammaanka ayaa sheegay in khilaafyada sii socda ee ku aadan hanaanka doorashadan aysan baabi'inaynin oo keliya horumarkii dhibka laga soo maray, balse ay sidoo kale dareenka ku weecinayaan dhibaatooyin joogto ah oo ay ka mid yihiin daadadka, abaaraha, ayaxa, COVID-19 iyo la dagaalanka halista kooxda Al-Shabaab. waxa ay sheegeen in heshiis laga gaaro doorashooyinka uu taageerayo fududeynta iyo wadista horumarka Soomaaliya iyo shacabkeeda. xubnaha golaha ammaanka waxay hoosta ka xariiqeen in heshiis la gaaro uu muhiim u yahay hanaan kasta oo doorasho in si guud leh loo fuliyo. waxay xuseen in heshiiska 17 Sebtembar uu yahay aas-aaska kaliya ee ay taageereen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada, ayaa lagu yiri bayaanka. sidaas darteed xubnaha golaha ammaanka waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada Soomaalida in ay iska diidaan rabshadaha, dibna u bilaabaan wadahadallada si degdeg ah iyada oo aan wax shuruuda lagu xirin. waxay ugu baaqeen hogaamiyaasha Soomaalida inay xaliyaan arrimaha harsan, ayna horumariyaan danta shacabka Soomaaliyeed marka hore, ayna si degdeg ah isugu raacaan hanaan doorasho oo leh waqti cayiman. waxay intaasi ku dareen in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNISOM oo kaashanaya AMISOM, midowga Yurub, midowga Afrika, IGAD iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah uu diyaar u yahay inuu caawiyo. xubnaha golaha ammaanka ayaa soo dhabeeyay codsigii farmaajo u jeediyay madaxweynaha Congo ahna gudoomiyaha midowga Afrika ee ahaa inuu dhexdhexaadiyo saamileyda siyaasadda Soomaaliya, waxayna taageero u muujiyeen dadaalada gobolka uu hogaaminayo oo miiska wadahadalka la isugu keeno dhinacyada Soomaalida. 6 isbitaal oo ku yaala caasimadda India ee Delhi ayaa waxaa gebi ahaanba ka dhamaaday oxygenkii, iyadoo dhaqaatiirtuna ay sheegeen in isbitaalo kale ay qarka u saaran yihiin in oxygentu ay ka dhamaato. dad badan ayaa dhintay intii ay sugayeen in oxygen lala soo gaaro, halka in ka badan 99 qof ay buuxsameen sariiraha daryeelka xaaladaha degdega ah. India ayaa la dhacaysa mowjad labaad oo caabuqa COVID-19, waxaana talaadadii la diiwaangeliyay rikoorkii ugu badnaa ee kiisas cusub oo caalamka oo idil. dalkaas ayaa diiwaangeliyay ku dhawaad 16 milyan oo caabuqyo la xaqiijiyay 24 saac ee ugu dambeysay. waxaa dalkaas laga diiwaangeliyay 314,835 oo kiis oo cusub, halka dhimashadana ay sare ugu kacday 2,104 qof. waxaa jira warar soo baxaya oo ay sheegayaan in mas'uuliyiinta gobolkaas ay joojinayaan haamaha oxygeenta ee loo gudbiyo gobolada kale, sida uu sheegay TV-ga gobolka Delhi ee NDTV. ururka ONLF wuxuu ka mid ahaa jabhadaha muddada dheer dagaalka xoriyad-doonka kula jiray dowladda Itoobiya 3 sano ka hor, ayayna heshiis nabadeed qaateen. Axmed Maxamed oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ururka ONLF ahna madaxa xafiiska xiriirinta dowladda dhexe ayaa warbaahinta ugu warmay arrimo la xiriira doorashada iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ururka uu wado. ururka ONLF intii uusan bilaabin dagaalkii hubaysanaa ee dowladda Itoobiya uga soo horjeeday, wuxuu deegaanka Soomaalida soo maamulayay ku dhawaad sanad iyo 10 bilood. calanka deegaanka oo hadda leeyahay iyo manhajka waxbarashada ee Soomaaliga ahna waxaa hirgelisay dowladda deegaanka
ee UNLF ay hogaaminaysay. Howlaha aasaasiga hirgelintooda markii aan bilownay waxaan haysanay taageero shacab oo aad u badan. Kadib dagaal ayaana laga soo qaaday madaxda ururkana in la dilo ayaa la bilaabay. Taas ayaa nagu kalifay in aan duur ka galno aan jabhadeen bilowno, ayuu yiri Axmed Maxamed. Guddiga doorashooyinka Jamhuuriyadda madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa shalay shaaciyay liiska musharaxiinta ka qaybgali doona doorashooyinka dowladda hoose ee dhowaan dhici doona. Waa markii saddexaad oo Somaliland laga qabanayo doorashooyinka golayaasha deegaanka. Markii ugu horeysay waxay ahayd 15 December sanadkii 2002. Sidoo kale 2012 ayaa ugu dambeysay oo la doortay golayaashan. Doorashadii ugu horeysay 2002 waxaa ka qayb galay 6 xisbi siyaasadeed, waxaana ka soo baxay 3 xisbi oo kala ah UCID, UDUB iyo Kulmiye. Sidoo kale doorashadii ugu dambeysay ee 2012 waxaa ka qayb galay 7 urur siyaasadeed, waxaana soo baxay 3 ka mid ah oo kala ah Kulmiye iyo UCID iyo Wadani. Sida la shaaciyay shalay, ilaa 2368 musharax ayaa ku tartamaysa 353 kursi oo ah dhammaan deegaanada Somaliland. Doorashada oo dhici doonta 31 bisha May ee sanadkan waxaa lagu tilmaamay midii ugu adkayd dhanka loolanka oo dhalinyaro badan ay qayb ka yihiin. Kuraasta ugu badan ee lagu tartamayo waxay yaalaan magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. Kadib markii musharaxiinta la kala reebay, kaliya 14 habeen ayaa u soo baxay in ay u tartami karaan kuraasta doorashada ee golayaasha deegaanka. Waana tirada kaliya ee ku dhawaaqday in ay danaynayaan in doorashada ay ka qayb galaan. Intaas aynu ku soo afmeerina warkii aad kala socoteen Samareb TV. Inta warkan wararna ku mudano waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.